horta Solteeko isagoo ayaabu dacwad gudbinaya su'aasha in loo waadaxiyo bulshada Soomaaliland ay tahay waa taa Solteeko waa shakhsi waana shicib sharciyad maayir uu ku sheegan karayana ma jirto cid ay tahay in dacwad laga gudbiyo oo maxkamad la saarana waa isaga maxaan sidaa u leeyahay dalka xeer buu leeyahay dastuur buu leeyahay qawaaniin baa taala muddadii golaha deegaanka Hargeysa ninkaas uu hogaaminayay 5 sano 2 sano saayida oo qeyr sharciya ayuu cashuurta ummadana ku qaataa kursiga uu ku fadhiyaa saddex mid baa qofku maayirnimo ku sheegan karaya sharciga marka laga hadlayo kow waa inuu yahay elected person qof la soo doortay oo ku yimid rabitaan shacab laba waa inuu ku soo baxay digreeta madaxweyne oo legitimacy-ga sharci cidda dalka leh oo madaxweynaha la doortay waxna magacaabi karay waxna eeri karay saddex waa inuu muddo kordhin ku jooga mar hadduu mandate-kiisii sharci dhacay golayaasha dalka ee sharci dejintu waa inuu muddo kordhin siiyaan saddexdii bay idinkaan idin weydiinayaa shacabka Soomaaliland baan weydiinayaa saddexdii midna ma ku fadhiya waa maya marka there is no way uu oran karayo maayir baan horta waa shicib ninkani qodobka labaad markaan leeyahay isaga tahay in maxkamad la saaro oo maxkamaddu ku hanjabayo ay tahay inay xukunto waa isaga maxaan u leeyahay geesta kale waxa uu Barkhad Jaamac Batuun si qoto dheer u dul istaagay xaaladda wadooyinka magaalada Hargeysa iyo waliba dhulka danta guud muddo 7 sanadood ayuu caasimadda maayirkeeda sheeganay ninkaasi tusaalaha ugu basiisan ee ummadda Soomaaliland arki karaysa waxa weeyaan marka wax kale ba laga yimaado bilicda magaalada Berbera iyo boorka bartanka magaalada Hargeysa dhex yaal wuxuu maxkamadda ku mudanaya waxa weeyaan dantii guud ee ummadda magaalada Hargeysa ee maayirkeeda uu sheeganayay meel maanta dan guuda baloor bartanka Hargeysa ama baalaheeda ku yaala oo masaajid laga dhisaa kuma yaalo oo dhul dan guuda garoon kubadda dhalinyarada looga dhisaa kuma yaalo dhul dan guuda meel xanaano ama cusbitaal laga dhisaa kuma yaalo meel iskuul dan yarta looga dhisaa kuma yaalo bartanka magaalada marka laga yimaado banaanka magaalada laga helay oo mas'uuliyad dar ay hadin lagu maxkamadeeyo tiraba intuu madaxweyne Muuse talada dalka hayay 2 jeer baa hanti dhowrku xilay dawladda hoose oo qof uu ku rogoodo ummadda u soo tabinaysan waan musuqmaasuqa halakay dawladda hoose xafiisku ku shaqeeyaa waa ku Ingiriisku dhisay 1950 2020 oo numaran oo mas'uuliyad darrada iyo awood darrada maamulay haysatay ku toosaysa shaqaalihiisu 3 bilood mushahar ma qaataan waqtay tahay in lagu maxkamadeeyo isaga magaalada Hargeysa oo caasimadii qaranka ah wadooyinkeeda markaad marayso hogog baa la mariyo hogog ee wadooyin lama maro cashuurtu 6 degmad ka qaado yacni yakhyakhsi ilaaligood baad u dhimanaysaa wadooyinka ummaddu ay dul marayso qashinka dhex yaala Hargeysa waxaad sooranaysaa warbixintii ugu dambeysay waa tii BBC diyaarinaysa indhiina ku arkaysan yacni caasimaddu haddii maanta meesha la yiraahdo roob da'o hogog iyo boholay noqota odogtiina roobkii u dambeeyay maatidu qaaday ee daadka u dhimanayay ee madaxweynuhu soo kormeeray imisa ku dhintay tirada ad garanaysaa marka maxkamaddu ku hanjabaya annagu diyaar baan u nahay waanu tagi doonaa ama isaga sharcigu uu waraabin doonaayo ciqaab kala mudan doona oo sharci xora oo xalaal ah dalku heli doonaayo garsoorku sharaftiisu ilaashan doona ama waxa cadaan doonta garsoorku ku hanjabaya mid isagu gacanta ku haysta inuu noqon doono waxa xidhaalaha maanta de garsoorku waan igi sheegay baasha ma haysta baan idhaahno anaa sheegay baasha waa kii anigu ma haysta waan saamaxaadan wax ku haysta de tiimkii baa haysta de aanu sheegaynay waka de wali rama xidhan wuxuu ku xidhan yahay bal garsoorka tago weydiiye ninkii dacwadda lahaydeen uu ku soo oogay ee uu la xiiqsanaa ninka CID da haysta uu la barrakhleynayay waka baasha ilaadeer ma haystee wadigi baasha CID da haysto ku eedeynay baashay bal cid haysta adeer soo sheeg
ila wadigii dee uu waxayna qof bila aadana oo xuquuq dastuuriya leh oo madax xisbiya oo dastuurku u damaanad qaaday inuu qowl iyo qoraalba ku dhaliili karayo xukuumadda oo xeerfoodhiina haysta oo shahaado haysta oo inta sidii xoolihii la iska xidhay meel isaga jira dunidana kamay dhicin dalkana 30 sano oo xukuumadda ka soo talinaya kamay dhicin tan baa u koowa arinta kale ee mucjisada ah iyaduna waxa weeyaan Faysal Cali Waraabe ayaa dacwad loo haystaa baa leeyahay oo maxkamadda isagana waaranu yaala baliyadana waynu eegi doonaa ama Soomaaliland quruxda badneed cadaaladda iyo sinaantii horumarka lagu naaloonayay baa suura gali ama xukuumadani wax kale isaadaalinaysaa iyadun bay ku ugu dambayn barkhad jaamac batuun oo warbaahintu weydiisay in uu ka soo baxsaday dacwadda laga gudbiyey ayaa waxa uu ku jawaabay wali gaaban Hargeysa tagaya anigu waxaan ka yimid ceeri gaaban muddo 4 cishaa ku maqnaa arimo danguuda baan u baxayo nin xarig ka boqon